na beesha hawiye waa tahay marka aan eegno hawiye waa ilmo erir Soomaale waa abka ay ka soo farcameen beelo waaweyn oo kamid ah Soomaalida odayga Soomaale waxa la sheegaa inuu dhalay 9 wiil 9ka wiil ayaa waxa ay kala yihiin erir maqarre gardheere mayle garre gariire xamarre xariire iyo yabuur inta badan 9kaas wiil ayaa waxa la sheegaa inay sii farcameen oo ay sii tarmeen xamarre iyo xariire ayaa inta aan baaritaankan ku guda jirnay waxa aan raadinay qabiile ka soo askumay ama jifooyin ka soo askumay balse ilaa hadda ma aanan arag 7 kale ee soo hartay ayaa waxa la sheegaa in ay u kala baxeen qabiilooyin fara badan kadib markaan aragnay qoraalo kala duwan oo ay qoreen ajaanib iyo Soomaali ayaan waxa aan go'aansanay in aan isku soo ururino aan ka dhigno hal qayb sida aan ka soo xiganay qoraa Yemeni ah Soomaali ama odaga Soomaali ahaa ayaa magaciisii hore waxa uu ahaa Cusmaan bin Maxamuud waxa uu qoraagaasi Yemeniga ah sheegaya in jasiirad Carbeed uu ka soo hayaamay isagoo u soo hayaamay bariga Afrika waa tahay aynu dib ugu laabanay beesha hawiye ayaa waxa la sheegaa inuu u kala baxo karanle xaskul raarane gugundhabe jambaale iyo gorgaarte karanle hawiye ayaa waxa lagu tilmaamaa in uu yahay curadka hawiye waxa ayna u kala baxaan karanlaha kaariye karanle saxawle karanle kaariye wadaare karanle oo ah qabiilka murursada ayaa isna waxa u kala baxaa fool culus iyo sabti xaskul hawiye haddaan u imaadno isna waxa uu kala baxaa idle xaskul xareed xaskul cali xaskul iyo reer hilowle gugundhabe ayaa isna waxa uu kala baxaa jidle jajeele baadacade oo 3 ah jambeele wuxuu u kala baxaa isna sida la sheegaya ajuuraan iyo hintire odayga ajuuraan ayaa waxa la sheegaa in uu dhalay 7 wiil 7da wiil ayaa waxa ay kala ahayeen waalmooge waaqle beydaan saanle dhaqsoore toore iyo salamage beesha ajuuraan ayaa waxa ay ka mid tahay beelaha Soomaaliyeed kuwa ugu taariikhda iyo faca weyn iyadoo aan ka hadli doono boqortooyadii ajuuraanka qarnigii 5aad ilaa qarnigii 15aad taasi oo guulo kala duwan u soo hoyday Soomaalida haddii aynu u imaadno qaybta kale gargaarte hawiye ayaa waxa uu dhalay Maxamed Maxamuud wadalaan salkicis uurteen maashe iyo dhaame ayaa waxa la sheegaa in uu dhalay hiraabna waxa la sheegaa inuu u kala baxo mudulood aramle martile oo ah shiqaal uurmasoore badjecel madarkicis iyo Maxamuud hiraab oo ah duduble beelaha uurmasoore badjecel aramle faracooda inta badan waxaan raadinay qabiilo ku abtirsado laakiin nasiib xumo ilaa hadda fara kuma aanan dhigin mudulood ayaa waxa la sheegaa inay u kala baxaan Maxamed darandoole udeejeen iyo wacweyteen darandoole ayaa waxa uu kala baxaa Cusmaan iyo Hilibi Cusmaan waxa ka baxa wacdaan mobleen abgaal iyo ilaawey abgaal ayaa isna waxa uu sii kala baxaa harti abgaal oo ah warsangili iyo sool wacbuudan oo ah daawud reer mataan celi iyo Maxamuud Muuse iyo war culus oo ah wacaysle martile haddii aan fiirino oo shaqaal ah waxa ay u kala baxaan oo qutub loo bogay iyo gandarshe Maxamuud hiraab haddii aynu dib u fiirino waxa uu kala baxaa aarsade iyo waxadsame madarkicis oo ah habargidir waxay u kala baxaan cayr sacad saleebaan saruur iyo sifaadle laakiin nasiib xumo ilaa hadda waan weynay qaybaha kala duwan ee sifaadle meel aan ku sheegnana ilaa hadda ma aanan garan waxaa jiro beelo kale oo qoraayaasha shisheeye iyo kuwa Soomaaliyeed ay sheegaan in ay ka tirsanaayeen Soomaalida laakiin ilaa hadda meel aan ku sheegno ma hayno waxa kamid ah gardhaale iyo meyle oo maanta ah qabiilo sida la sheego ku kala abtirsada qabiilada kala duwan ee Soomaalida daawade haddii aan dib ugu laabano mar kale jadwal ahaan anagoo u raacino hawiye waxa uu kala baxaa karanle xaskul raaranle gugundhabe gambeele iyo gorgaarte haddii aan fiirino xaskul waxa uu sii kala baxaa idin iyo arid gugundhabana waxa ay u kala baxaan jidle jajeele iyo baadacade jidlaha ayaa waxa uu sii kala baxaa murale iyo dalcowtire haddii aynu fiirino karanle waxay u kala baxaan qabiilada hawiye waxa ay inta badan ku nool yihiin
koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya walow qaybaha kala duwan ee dalka Soomaaliya gaar ahaan waqooyi bari waqooyiga sidoo kale ay ku nool yihiin waxaa sidoo kale jira qabiilo hawiyaha ka mid ah oo ku nool wadanka Kenya iyo Ethiopia beesha hawiye waxa ay kaalin mug leh ka ciyaartay dowladda